جوجا يماشي اللي يسوي بهذا لفت كذا وحبة المدريس حنا كنا وحاجة هيدا نتيجة دقيقة والله تعبكم واحد دليلي وحيالها هذا عقاتين أو حكم أيوه بشر هذا أو ضد سود عيو يوم ما ديانا قاركود الرواب كده قارنا ولا أوارتي كتير عندك كان أتجرس الجورا ضرورة إنه راعى إنه بعد ذلك عشان أنا نيجي بعد كسر عدونا سر راعي لكن ولا مدحوين بنت لاني قلبي أنزله وحقاتين جيسينيو دولة فضل كان وحنوسو شيدين إياه باقة أنا إيش كويس حالة الديانة ذاك تاجر وبقالة هي تاجر سياسية لورا أيوة بيستا دولتنا هؤلاء تخيبون عندنا وصف كلام بكذا وبرنامج ما شاء الله صابر عبد القادر الرسول صابر هونستي تلفزيون كسومالي كيبل مقالة كسمايو munaasabad lagu xusayo maalinta Africa Day ee soo qaban qaabisay safaaradda Soomaaliyeed ee wadanka Kuwait ayaa lagu qabtay dalkaasi sida uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cabdullaahi ee Kuwait nooga soo warama danjirayaasha Afrika u fadhiya dalkani Kuwait oo ay safaaradda Soomaaliyeed ee wadankani Kuwait hormuudka ka tahay ayaa xaflad ballaaran oo lagu weyneynayo maalinta African Day ka dhigay Hotel Jazeera ee dalkani Kuwait xafladaas oo ay ka soo qayb galeen madax sare ee ka socotay dalkani Kuwait oo ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee wadankani Kuwait xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wadankani Kuwait danjirayaasha dalalka shisheeye u fadhiya wadankani Kuwait iyo dhammaan jaaliyadaha Afrika ee ku nool wadankani Kuwait safiirka Soomaaliya u fadhiya wadankani Kuwait ahna hormuudka safaaradaha Afrika ee fadhiya dalkani Kuwait ayaa waxa khudbad dheer xaflad soo jeediyay isaga oo ku hadlaya magaca danjirayaasha Afrika waxaana uu safiirka Soomaaliya u fadhiya wadankani Kuwait danjire Cabdiqaadir Amiin Sheekh khudbadiisu uu ku soo qaatay horumarka dhan waliba leh ee ay gaadhay Afrika isaga oo tusaale u soo qaatay doorka ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa amniga ee kaashanaya walaalahooda AMISOM ee Afrika wuxuuna danjiraha ku daray khudbadiisa in Afrika ay tahay mustaqbalka adduunka wuxuuna ku bogaadiyay dalalka Carabta gaar ahaan wadankani Kuwait in ay maalgashi ka sameeyaan wadamada Afrika أصحاب السعادة محمد سليمان المشعان مساعد وزير الخارجية وشؤون إفريقيا وفي هذه المناسبة يسعدنا أن نهنئ المملكة المغربية الشقيقة بعودتها الميمونة إلى قطبية الاتحاد الإفريقي بما لها من مكانة في إسهاماتها المثرية على الصعيدين الإفريقي والعربي أسمى تهانينا للمملكة المغربية الشقيقة متمنين لها كل التطور والانتهاء واخيرا وعلى راسها معالي الشيخ صلاح خالد النائب الاول رئيس وزاره الخارجيه كما نشكر معالي السيد خالد سليمان الجارولة نائب وزير الخارجيه على حرصه الدائم لحضور التقريرات في كل سنه وسعاده الصديق بارك الاكرام مساعد وزير الخارجيه وسعاده محمد سليمان المشعان مساعد وزير الخارجيه لشؤون افريقيا وكل الذين شرفونا بالحضور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. sidoo kale waxa halkaasi khudbad dheer ka jeediyay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee wadankani Kuwait wuxuuna sheegay in xiriir wanaagsan ee iskaashi dalkiisa iyo dalalka Carabta guud ahaan gaar ahaan wadankani Kuwait ay la leeyihiin wadamo badan oo ka tirsan Afrika ayaa waxa uu yiri sida السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أنقل لكم تحيات معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد محمد الصباح حفظه الله وتمنياته باختباركم اليوم بالتوفيق والنجاح ومن منطلق حرص دولة الكويت على العلاقات العربية الأفريقية وقد استضافت الخدمة العربية الأفريقية
ذلك في نوفمبر عام 2013 وقامت بتسليم الرئاسة المشتركة إلى جمهورية موريتانيا الشقيقة خلال خطوة الأمة العربية الأفريقية الرابعة والتي عقدت في مدينة ملاقو في نوفمبر من عام 2000. kadib markii ay dhammaatay khudbadihii waxaa danjiraha iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ay fureen bandhiga ay dalka Afrika ku soo bandhigeen dal walba hidaha iyo dhaqankiisa. Safaaradda Soomaaliya ee waddankani Kuwait iyo jaaliyadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ayaa waxaa halkaasi ku soo bandhigeen hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, iyaga oo madaxdii ka socotay waddankani Kuwait iyo diblomaasiyiinta ay soo booqdeen bandhiga ay ku soo bandhigeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankani Kuwait hidaha iyo dhaqankooda. Ma ahan markii ugu horeysay ee lagu maamuso maalinta African Day ee waddankani Kuwait. Cabdullaahi Macalin Nuur, Somali Cable TV, caasimada dalka Kuwait. horumarka ganacsi ee ka jira gudaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale ganacsiga oo uu noqday sanadihii ugu dambeeyay mid la casiyay ayaa warbixin ka hadlaysa waxa inoo diyaarisay wariyaheena Ayaan Cusmaan. halkani waa mid ka mid ah goobaha sida weyn loo qorxiyay ee ka dhex binaysan magaalada Muqdisho. dhismo ahaan iyo waliba muuqaalada quruxda badan ee aad ku daawan doontaan in waxa ay qayb ka tahay dadaalo ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka qayb qaadanaya dib u soo celinta bilicda caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Muqdisho Mall waxa ka dhex binaysan dukaamo iyo waliba sidoo kale xawilaado si farshaxan loo qalabeeyay kuwaas oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay ka heli karaan adeegyada ay u baahan yihiin. waxay sidoo kale xarumo shaqo u tahay boqolaal dhalinyaro Soomaaliya oo subax kasta u soo shaqo taga isla markaasina kula dukaama ganacsi. waxay TV-ga Somali Cable uga sheekeeyeen sababta ay ku doorbideen inay degaan Muqdisho Mall. magacaygu waa Zainab Maxamed Cabdulle. waxaa meeshan aan ka furnay Muqdisho Mall dukaankan oo ugu talagalnay in rag iyo dumarba aan ugu labisno maadaama bulshada inta badan ganacsi ay ku soo badanayaan si income-ka waddanka soo galay loo sii siyaadiyo oo bulshadina dhar qurux badan ay u helaan muuqaalkoodana u sii ifo. adiga gabadha ay qaatay xilli ma bilowday ganacsi? adiga muddo 5 sano waa ku dhex jiraa xilliga jaamacadda aan dhiganayo iskuulka ilaa hadda waan ku dhex jiraa. waxa iska caawiyaa maamadeeda maadaama aan hadda waxba shaqo gooniya aan ahayn si ganacsigeedu u sii ballaarto magac fiican u yeesho. magacaygu waa Cabdinaasir Qaasim Xuseen. awal horta waxaan leeyahay Ramadaan Kariim bulshada meel kasta ay joogto. mid labaad meeshan waxaan ku haynaa agabyadana u jeedaan sida toobkan oo kale iyo cabaayadaha shopping noocyadiisa kala duwan haday kareemiyaha lahaayeen haday saliidaha lahaayeen saabuun ay noocaadi wixii shopping yani ku aftirsado iyo waxyaabahan yirrooti oo yani gabdhaha u yaqaanaan make up oo kale. waxaan haynaa boorsooyin oo kale, waxaan haynaa kabooyin ay nooca oo dumar iyo ragba iyo waxyaabaha ay dumarka isku qurxiyaan oo ay yaqaanaan bugta iyo fashion-nada hadii ay frantiyaal ka teenado bushiyada gacmaha la gashto iyo waxyaabo kale aad u badan. wallahi adiga waxaan bilawnay muddo 3 bilood yani meesha ay furan tahay bishana yani 3 soo xirmaysan. waxaan ku doorbiday maadaama ay tahay meel yani bil ahaan oo yani bulshada soo jeedinayso maadaama ay tahay meel aad u qurux badan yani ayna yani ku qiyaasi karo inay tahay meelaha yani la jaan qaadka hadda xilligan la joogo oo yani lisdhihi karo mall yani businessyada qaar oo ku munaasib yihiin saas awgeed aan u doorbiday. marka hore magacayga waa Maxamed Xuseen Cumar. businesska waa Caro. waxaan dhiibiyaa dharka raga. waxay ku taalaa Muqdisho Mall. Carada magaceedu waa Bilaara. maxaad ku doorbiday inaad Muqdisho Mall ganacsiga ka samayso? waxaan ku doorbiday marka la aragnay meelaha qaar oo dadka carooyinka banaanka ku furaan waxaan aragnay Muqdisho Mall in laga dhigay suuq aad u weyn, market weyn ah. kadib waxaa aan qorsheysanay aan plan gareysanay in caro aan ka furno sida waxa meel aad amni u fiican dadkeena aad u soo gal karaan oo meel aad munaasab ku tahay oo carooyinka laga furo. wallahi qof kasta markuu arko meeshan markuu imaado wuxuu leeyahay
maduwaan joognaa mise maxaa lahayay wadamo kale aan joognaa ma u maleeyaan in soo dhex galaan muqdisho mal markay soo dhex galaan ma u maleeyaan in maxaa lahay joogaan Soomaaliya inay joogaan ma u maleeyaan waxay u maleeyaan inay joogaan wadan aan wadankooda ahayn saytaana way nagu dhiirigeliyeen in daan shaqada culus ay haystaan ilaahay ina garab galo muqdisho mool waxa uu ka kooban yahay sida aad aragtaan 3 dabaq kaasoo quruxda iyo bilicda la jaan qaadaya dhismayaasha dunida casriga ah boqolaal kamida shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa daawasho ugu soo tagay iyagoo sidoo kale ka adeeganaya waxaanay soo jiidatay boqolaal kamida sidoo kale qurbo joogta dalka gudihiisa ku sugan waayaan maan Somali Cable magaalada Muqdisho ganacsade Maxamed Yuusuf Gurey ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay 400 oo qoys oo ku nool gobolka Maroodi Jeex sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cilduruus Beershiya deeqdani raashinka ay isugu jirtay bur saliid bariis iyo timir oo ku deeqay ganacsade Maxamed Yuusuf Cali Gurey ayaa loo qaybiyay 400 oo qoys oo ku nool deegaanada hoos yimaada degmada Sabawanaag oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex oo muddooyinkan u dambeysay la daalaadhacaya abaaro baaxad leh oo saameyn ku keenay dad iyo dunyaba iyadoona xilligan ay bilatay bisha barakaysan ee Ramadaan halkaas oo ay ugu qaybiyeen xubno guddiya oo ka wakiila ganacsadaha Axmed Cabdiqaadir Axmed Xasan oo kamida guddidani wakiilka ka ah deeqdani halkan ugu qaybiya dadka reer miyiga ee ku nool degmada Sabawanaag waxa uu sharaxay deeqdani cidda soo bixisay waxaan uu mahad celiyay odayaasha deegaanka iyo ciidanka bilayska oo ka caawiyay qaybinta raashinkani waxaanu joognaa goobtii saddexaad ama degmadii saddexaad oo ah Sabawanaag oo aanu keenay deeqdii uu ku deeqay ganacsade Maxamed Yuusuf Cali Gurey iyadoo aanu ugu talagalnay 400 oo qoys ilaah mahadi si fiican bay u dhacday waxaanan runtii aad ugu mahadnaqayaa odayada iyo booliska Sabawanaag oo si aadan noola shaqeeyay waxaanan halkan uga ducaynaynaa Maxamed Yuusuf Cali Gurey in Ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadkiisa uu u saaro waxaanu insha Allah rajaynaynaa inaan goobaha kale la gaarsiino deeqda ka guddi ahaan aanu wakiil uga nahay Maxamed Yuusuf Cali Gurey aad baa u mahadsantihiin barakallahu fiikum xubno kamida 400 ee qoys ee loo qaybiyay deeqdani raashinka ee uu ku deeqay ganacsade Maxamed Yuusuf Cali Gurey oo halkaas iyaguna ka hadlay ayaa waxay u mahad celiyeen deeqdaasi uu ku soo deeqay ganacsaduhu iyo guddida ka wakiilka ee soo gaarsiisay iyaguna Xuseen deeqdaasi ay ka gudoomeen si fiican loogu qaybiyay ilaahay baa mahadle maanta waa maalin Ramadaan ay 3 ama 4 alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baan u mahadnaqnaa ilaaha abaartii naga jabiyay nimcadana siiyay ayaa mahadaale alxamdulillah ilaahay waa mahadnaqnaa waxa kale oo aanu saakaalin ku qaadanay deeq uu keenay ninka la yiraahdo Maxamed Yuusuf Cali Gurey isagana waxaan uga mahad celinaynaa deeqda uu keenay waxaan leenahay jisaakum allah jisaa barakallahu laka alxamdulillah ilaahay ka jaasi waanu ka gudoomanay wadaadadii wadayay waftigii waday culimadii wadayna waanu si fiican baan isu garab taagnay hadii aanu nahay يعني مقرن سوى ياش الدجان كانوا وقاضي يبكي الدجان كان محمد أحمد عقال قدومية الدجان كا تجمع سبونا كانوا مني داق دا محمد يوسف علي قري كتيمي هدانو نهاي الدجان كا سبونا سفي عنا وانو قاضني إلى هاي دنبدا في مغفورنا هكسيو أنا جنا عنطفي عن حلالة إلى هاي نقدقو هذا قينا محمد يوسف علي Gurey oo ninka Ilaahay deeqdan ugu soo dhiibay dadka isaguna ugu soo tabarucay ee gartay inuu dadkiisa baahan iyo walaalihiisa dhibaataysan wax siiyo halkan waxaan wax ugu qaybinay 200 oo qoys 400 oo qoys baan halkan raashin ugu qaybinay oo isugu jira dadkii soo guurtada ahaa iyo dadkii deegaanka ahaa labaduba iyagoo dad dhibaataysan oo dadkii xoolo ay ka baxeen abaaru ay soo naafeeyeen si wanaagsan oo sharaf leh ayaan ugu qaybinay si wanaagsan bay u qaateen alxamdulillah rabbil caalamiin si wanaagsan bay u gaadhay waa u mahadnaqaynaa cidii soo saartay ee uu keentay oo Maxamed Cali Gurey ilaahay dambigiisa ha dhaafo ka soo saarayna wax khayr leh ugu bedelo Maxamed Yuusuf Cali Gurey nimcadan uu siiyay ayaan ugu mahadnaqaynaa asagana ajarka ilaahay ka sawaabiyo anagana ilaahay ha noo calfo
si wanaagsanna waanu u qaadanay wanagaas waanu ka dheregnay ilaahay baanu ugu mahadnaqaynaa marka hore marka labaadna waa asaga ruus cabdillah ismaaciil beershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable degmada Sabawanaag waxaa burbur xooga soo gaaray jidka u dhaxeeya magaalooyinka Hargeysa Gibiley iyo sidoo kale Wajaale sida warkan uu ku faahfaahinayo howriyaheena Sakariya Nuux Ibrahim iyadoo uu guud ahaanba burbur xooggan soo gaadhay jidka halbowlaha ah ee isku xidha gobolada galbeedka iyo bariga Soomaaliland gaar ahaan magaalooyinka Hargeysa Gabiley iyo Wajaale kaasi oo qarka u saaran inuu gabi ahaanba baaba'o isla markaasina uu gaadiidka ku hayo dhibaatooyin sababa shilal galaafta naf iyo maalba jidkani ka muuqda dayaca iyo burburka oo sidoo kale halbowlo u ah ganacsiga dalalka Soomaaliland iyo Itoobiya isla markaasina ay maraan baabuurta sida iskaga kala goosha dekada berbera ilaa dalka Itoobiya ayaa waxa maanta telefishinka caalamiga ee Somali Cable TV uu ku urkalay xaaladda dhabta ah ee jidkaasi waxaan wax ka weydiiyay wadayaasha gaadiidka dhibaatooyinka uu ku hayo jidkaasi waxa gudo wadiga arkay maalin walba jiidayaasheeda iyo dadka xayradeedu waanay ku qarxaan waana ku siday shaqalada naga qaba isbrinada naga jira cashuurna maalin walba naga qaada dawladdu haday wax ka taban weydana dadka cashuurta qashab kaga qaadi meesha waan loo noqon anaguna waxay baaba iyo burburka ku yimid jidkani halbowlaha ah ee dhibaatada ku haya gaadiidka iyo dadka ayaa waxa xusid mudan inay ka damqadaan caruurta xoolaha ku jira agagaarka jidkaasi oo gacmahooga ku buuxiya si iska wax u qabsa si ay ugu sahlaan baabuurta maraya jidkaasi magaca hal sameynaysa wadada gawaarida ku rogmanaysa sameynaysa adigu ma markaas xal qaaday dawladda ku dirtay mise adigu ma adeersatay anigu bas ku diray dawladda xafadiina oo ka taala haye xoolahan adeegisi sidoo kale waxa Somali Cable TV la hadlay dadweynaha reer Gabiley ee maraya jidkaasi Ismaal Cabdi Madaw aqoonyahanka reer Gabiley waxaan halka taaka joognaa deegaanka magaalada Sabirre oo u dhaxeeya kala beer iyo Gabiley oo ah meesha ugu burburka badan xagga wadadan aamida ee uu halkan saaka waxaan ugu nimidnay wiil yar oo iskiis ku qaamay oo wadada buuxinaya meelaha gooqay oo wax lagu xaqayo oo dhigi galay oo daamada 12 ka maayar ee Gabiley 12 xildhibaan ee Gabiley daha wadayga iyo sharaabka isla dhaca ee saacadana wuxuu khayr baa dhaawaa leeyahay aniga eegay laakiin loo diraa leeyahay waas waxay daayaceen anigii loo diray kana ku dhaawaba leeyahay loo diray geel oo Gabiley ku qaban karay midda kale waxa tusaale soo qaadanaya golaha deegaanka booro waxay dhagax dhigeen marka la isku tashaday aqliga iyo cilmiga iyo cududda iyo daacadnimada la isku geeyo wada isku xidha boorama iyo lawyaca meesha wada la gaaro rag baa xusay waxa leeyahay maamulka Gabiley war waxa daayacdan anigii leeyahay si kastaba ahaatee jidkani dhibaatada ku haya dadka iyo gaadiidka ayaa waxa mar kasta mara madaxda ugu sareysa xukuumadda Somaliland ilaa welina lama hayo wax qorshe oo cad oo ay ka soo saaraan Sakariya Nuux Ibrahim Somali Cable TV gobolka Gabiley gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Sanaag ayaa xilalkii u kala wareejiyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag iyo sidoo kale gudoomiyihii hore xilka looga qaaday sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdullaahi Xuseen Darwiish oo ku sugan gobolka Sanaag gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cabdalle ayaa wuxuu maanta xilalkii u kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee maxkamadda gobolka Sanaag Muuse Dhoollayare iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaan xilkaasi loo soo magacaabay Cali Sidiiq Xaaji Faarax waxaana munaasabadii xil wareejintan oo ka qabsoontay xarunta maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigaabo ayna ka soo qayb galeen garsoorayaasha maxkamadaha Ceerigaabo ku-xigeenka xiriirliyaha guud ee gobolka Sanaag qareeno saraakiil booliiska iyo xubno kaleba
ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cabdalle. munaasabadan ay xilka kula kala wareegayaan gudoomiyihii hore gobolka Muuse Maxamuud iyo gudoomiyaha cusub Ali Sidiiq Xaaji Faarax oo dhowaan guddiga cadaaladdu ay u soo magacaabeen mid kasta xilka iminka loo wareejinayo. run ahaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay gudoomiyaha cusub ee loo soo bedelay gobolka Sanaag maxkamadda gobolka Sanaag Ali Sidiiq oo anagu aan si fiican isu naqaano u yahay. waxaan ka rajaynaynaa inuu la yimaado shaqo wanaagsan hufan mas'uuliyad dardar uu shaqada gelin doono insha Allah isagoo loo soo dalacsiiyay maxkamadda gobolka Sanaag. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waan la shaqeynaynaa insha Allah anigoo ku hadlaya soorka gobolka Sanaag afkooda. gudoomiyihii hore maxkamadda gobolka Sanaag Muuse Dhooleyare ee xilkan wareejinayay iyo gudoomiyaha cusub ee xilkan maxkamadda gobolka Sanaag la wareegayay Ali Sidiiq Xaaji Faarax oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa hadalladooda ka mid ahaa. gudoomiyaha maxkamadda gobolka ee cusubna waxaan leeyahay gudoomiye ku soo dhawow gobolkii Sanaag. wax laga yaabaa in wax lagu sheego lagu yiri waa sidan iyo waa sidan iyo waa sidan waad nasiib badan tahay. gobolka Sanaag oo gobol aad u wanaagsan dad wanaagsan baa ku nool bayar yar iyo beela yar yar oo afarta beelood ku aftirsan oo fara badan baa ku nool dhammaantood cadaalad bay ka sugayaan. insha Allah waanan ku rajo weynahay inaad dhammaantood si siman kiilooga iyo waqiyada ay maanta maxay haytay soo dhaweynta wanaagsan ee maxay haytay garsoorka gobolka Sanaag maxay haytay ay sameeyeen xil wareejinta aniga iyo gudoomiyihii hore Muuse Dhooleyare waa mid maxay haytay muhiimadeeda yeelan doonta hadii Ilaahay ka dhigo. 36 sanadood ayaan ka soo shaqeynayay wasaaradda cadaaladda garsoorka meelaanu maxay haytay gobolka Sanaag inaanu ku kulmi doono iyo maxay iyaguna kelmado kooban munaasabadan xil wareejinta ka yiri ku-xigeenka xilaliyaha guud ee gobolka Sanaag Yaasiin Maxamuud Jaamac iyo waliba xubnaha dhinaca qaranada iyo taliyaha baarista dambiyada ee booliiska. xilka la kala wareegayo labaduba waa laba nin oo aanu aad iyo saaxiib u nahay labadaba. maxkamadda gobolka cusub Ali Sidiiq aad baan u soo dhaweynaya gudoomiye wax kale ku soo dhawow gobolka Sanaag waa soo dhaweynaa waan kula shaqeynaa si wanaagsan ma kula shaqeynaa maxkamadda gobolka saaxiibkay Muuse walaalkay aad iyo aad baan u sugooteynaa waxaan Ilaahay uga baryayaa seer kale dhamaystirayo cadaaladiya soo dhawow baan leenahay gudoomiyaha cusub mar la kan u dhashay oo firfircoon oo shaqadiisa ka cad ama cadaaliya dawladdu miyaa naga kaxayraysa oo hadii labada kale ma gobol kale naga geeyay gudoomiyihii hore ma noo noqon doona taana Ali Sidiiq dadku way sii hadal hayaan waa ku sii boorreeyaa waxa la leeyahay cadaaladii iyo wanaag ku sii sagootiyay salaanta islaamka waxa leeyahay lagu doortay annagu waxa leeyahay debarasho wanaagsan adiga. ugu dambeyntiina waxaa gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cabdalle halkaasi xilalkii ugu kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee maxkamadda gobolka Sanaag Muuse Dhooleyare iyo gudoomiyahan cusub ee dhawaan xilka maxkamadda gobolka Sanaag loo soo magacaabay Ali Sidiiq Xaaji Faarax. waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish Somali Cable TV Ceerigaabo. dadka abaarta ee saameysay ee ku dhaqan duleedka magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay dalbadeen in gargaar bini'aadanimo la soo gaarsiiyo sida warkan uu ku faahfaahinayo Cali Nuur Taatiko oo Gaalkacyo ku sugan. barakacayaasha ku dhaqan duleedka degmada Gaalkacyo ayaa waxa ay ka hadleen xaalad adag oo soo wajahday noloshooda iyadoona haatan lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. waxa ay sheegeen inay soo wajahday biyo la'aan, cunno yari iyo hoy la'aan ayna mararka qaar ku adkaato sidii ay ku heli lahaayeen afurka iyo saxuurta maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. maamulka gobolka Mudug kan degmada Gaalkacyo iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayay ka codsadeen in ay u fidiyaan gurmad bini'aadanimo. 6 bilood baan joogaa 6 bilood noloshan hadda ku noolahay nolol daciif weeye naftan baan ugu jirtaa 6 biloodna waa soo joognay markaan ka ahaatan ka liidanana ma jirto ilaahay baa shaydaan baa liitay
dhibaatooyinka haatan haysta waxaa ka mid ah baahi iyo biyo la'aan iyo hoy la'aan iyo caafimaad la'aan hoyga aan ku noolahay bacaha hoostoodan ku nool bacana ma haysan oo waxaas geeda saafeeda la isugu geliyo hoostooda xirid iyo rafaad iyo waxaa nugu dilay dabayl haddii roobkii uusan nugu diin hadduuba nugu dii lahayo roob badan nu heli lahaa waxooga nagama hareen oo biyaha nala tegi lahaa ilaahayba wuxuu noogu naruureeyey macnaha xoogaaga maaragtay gebadkaaha nugu da'ay waxaa ku nool 625 qoys dadkaas waxaa haya intii qof xumaysa bilow aadniya baa haya gaajada ugu badan oo dama shidaan nawaale waxaa ku xigta hoy la'aan waxaa ku xigta caafimaad la'aan waxaa ku xigta suuli la'aan waxaa ku xigta intii qof xumaysa islaama dadkaas waa soo barakacay wax riseer feeriya ka yimid iyo wax ka yimid mudug hoose intuba waa yihiin dadkaas waxaan codsanaynaa hay'adaha sharafta leh iyo xukuumadda Puntland iyo wixii islaama mushtarka culimadiinka waxgaradka waxaan rabnaa si degdeg ah dadka loogu gurmado walaalahooda waa baqtiyan 10 qof baa dhimatay 2 dumar ah iyo 8 carruur ah waxay u dhinteen shadeeco bay sababsadeen gaajan waa ugu darmatay oo hunkurigii baa jabay waxaan leenahay dadka ha loo gurmado wixii islaama waa soo ma yihiin waa walaalo liita nolosha iyadu waa nolol ilaahay og yahay nolol hoosaysan ku nool ilaahay naga furan karo laakiin hadda annaku nolol wanaagsan kuma nooli aadnahaanta kuma nooli baahidana haysaa waa mid oon iyo mid gaajo iyo mid qarqariyo ruux binow aadniya intii xumaysa yaana haysa oo baahiyeed Allah hadduu naga soo furto uu naga furan karo Soomaalida iyo muslimiinta iyo islaamiintu hadday naga soo furtaan naga soo furan karo laakiin annaku nolol daciifa oo ilaahay naga furan karo islaamkuna naga furan karo yaan ku noolahay waxaanu ka codsanaynaa oo in kaga baahannahay ilaahay hadduu yiraahdo wixii aan cuni lahayn soonka aan soo nabiyaan ku soonnaa waa ku afurnaa wixii kale oo daciif ah oo kale ilaahay na siiyay oo kale waa quudanaa laakiin wax gacanta noogu jira ma jiraan wax meel noogu qorshaysan ma jiraan waxaanu ku noolahay nolol ilaahay baanu ku noolahay laakiin meeshaan aanu nimid si aanu u nimid markii hore waa ku noolaano xoogaa nacfiga bini'aadmiga islaamku waana siiyeen laakiin 2 bilood oo kaamila waxaan ku noolahay nololaan ruux bashari oo islaamku ku noolay oo daciifka 100% biyuhu noogu daran dad baan naga ganacsada biyaha aan joogno naga ganacsada annakoo hayna shirinkii hayno naftiga hayna nagu ganacsado oo ku baaba biyihii hore ma ahayn hay'adaha bixin jiray dawlad baa bixin jiray waa ku noolay laakiin haamaha meesha yaala farq weey dad